الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن شاء الله waxaan bilaabanayo sessionka koowaad tababarkeena customer care training ama daryeelka macaamiisha tababarkan waxaan idin soo jeedinayaa insha Allah shirkadda Samatalis Solutions oo aniga ah Saciid Cabduqaadir Saciid Naaji ayaa idin soo jeedi doona insha Allah waxaan ku bilaabaynaa marka hore bismillaah ala barakatillah ayaan ku bilaabaynaa customer care training insha Allah waxaan sii doonaa groupkiina waxaan dhahnay haddii aysan jirin wax la dhaho daryeel macaamiil shirkadiina ma jiri kartaba tababarkan muxuu muhiimad u leeyahay why this training is important tababarkan muhiimada u leeyahay maxay tahay waxaan haddii aysan jirin shirkadiina iyo shirkadaha aad ka shaqaysiin shirkado kala duwan ka imaateen Soomaa maqaayadaha ka imaateen dukaamana ka imaateen waxa ka imaateen xafiisyo ay meel ka imaateen meelahaas ka imaateen haddii aysan lahayn 100% boqolkiiba boqol customer satisfaction oo ah qanaacad macaamiil waxa u baahan tahay you must improve waxa u baahan tahay in aad meeshaasi ka sii qaadid oo horumartid marka tababaradan oo kale waxay kamid yihiin horumarinta qaabkii aad ku horumarin lahayd sideed ku horumarin lahayd qanaacada macaamiisha tababarka wuxuu ku koobnaa doonaa saddex qaybood module ayuu ku koobnaa doonaa ama saddex qaybood ayuu ku koobnaa doonaa qaybta koowaad oo ka koobnaa doona waxa waaye horta marka horeba inaan fahanno wax la dhaho understanding the customer horta macaamiilo maxaa tahay number 1 maxaa waaye fahamka macaamiisha kan labaad wuxuu ka koobnaa doonaa sidee lagu gaaraa daryeelka macaamiisha approaches to achieve customer care waa qaybta labaad qayb saddexaad waxaan baran doonaa maadaama la gaaray customer care ama shirkadaha qaarkood ay gaareen sideen ku cisho karnaa ama sideen ku sii haysan karnaa daryeelka macaamiisha muhiimadda uu leeyahay tababarkan maxay tahay tababarkan muhiimadda uu leeyahay waxay tahay wuxuu noqday shirkad kasto shirkadaha waxa loo kala qaadaa dhowr qaybood oo kala duwan ayaa shirkadaha loo kala qaadaa shirkad ah customer centered oo ayadoo dhanba daryeelkeeda waxay ku socotaa customerka waxa uu rabo baahida oo macaamiisha rabo ay ku socotaa waxa la lahaa customer centered philosophy shirkad waa shirkadna waxa waaye management centered philosophy maamulka wuxuu rabo maadaama caalamkii oo dhan shirkadda waxay ku guuleysan kartaa ama heer ku gaari kartaa kaliya markii meesha la rabo oo gaarsiisan tahay outstanding customer service shirkadda markii ay gaarto heer kala rabo markaas kaliya la karaa shirkadaas waa customer centered laba shirkad haysan anaka labada shirkadood mana waxa warka u yeeriyo maamulka habeenay jiifanayaan subaxiisu kacayaan waxay leeyihiin laan cusub xagga laga furo waxa hala sameeyo shirkadna nooc kale waa ka duwanta falsafad ahaan ugu duwanta warbixinay waxay weydiinayso su'aalo shaqaalaha front line-ka hay ka waran ayantaan maxaan soo kordhinaa shaqaalahaas waxay sii weydiinayaan macaamiisha kuwa ku xigo warbixinta hoos ka imaata ayaa kor la gaarsiiyaa maamulka kor loo gudbiyaa shirkadaas waxa la lahaa customer centered shirkad kale waxay tahay maamulka habeenkii riyoodo subax ma uu ku gudbiyaa marka shirkadiyo dhan waa la arkay falsafadaas inay shaqeynayaan wax kaliya oo shaqeynaayo oo fiican inay tahay customer centered marka shirkadii noocaas in noqotaa la rabaa ereydan fiiriyo waxa la lahaa if you don't take care of your customer haddaan daryeelin macaamiishaada yaa daryeelay qof yar kale maama si kale loo isticmaalaa ma ciyaalka xaafadda haddaan macaamiishaada daryeelin waa lagu daryeelaa waxa la it takes months waxay ku qaadanayaan bilo to win a customer nation but it takes seconds to lose one ana hadda maalin weyd okiyaal aad u isticmaalaa marka qolan okiyaal aad ugu sameeyay jir markasto marka maalmaha marka aad uma fiican shirkad fiican ma laakiin ma qaan somehow waxdaan nimankan caawi I was loyal for them customer loyal ahaa okiyaal u geystaa haddaan tagabo okiyaal meel ku xiray yaa ku xir maamulay fiiriya waxyaalaha la diidayo waxa kamid ah shaqada in qof ku xirnaato dadka meesha joogo loogaha inay isartaan la diidaa maxaa yeelay qofka maamulaha ah waa qofkan inuu sii awood dhameystiran awoodaha oo dadjinta awoodaha markii la sheegay saddex qaybood waa awood lacag qofka wax inuu qaban karo awood shaqaalna qofka wax sameey karo go'aan uu leeyahay authority inuu leeyahay markaas kadib qofka mas'uuliyad qaadi kara meel laga dhigay mas'uul laga dhigay customer kan waxaan daryeelka gacmaha laga xir laakiin
waxma qaban kartaa macaamiisha ma dareeli kartaa yaa cilad iskale maamulka sare ninka marka ma ka imaado wuxuu leeyahay okiyaalay qasnadu ku xiran okiyaalay dahab miyane maagda ama okiyaalay ka waran may wala soo baxshay hay maxay qabatay wax lagu ma qaban waya shock ay u dhacay ku dhigana u talay marka okiyaalay wax yaraa isma san dalooyinku waa laga bedelay wixii waa la sameeyay way waa weydiiyay qoladan ay ku dhigan maxaa ka qaldan ay tahay aan qoladan xogaa waa ka cirban waa socrban oo si socdo dhax mar dhow waxa way salaad janaaza lagu tukanaa meeqa ganacsi salaad janaaza lagu tukaday ya kiina waa lagu tukan doonaa haddaad saan iska bedeli weysan dadka bedeli karan adinka waa waxyaabadan qancinta macaamiisha waxaa iskala gabadha nadaafadda waa in lagu tababarka hadda qaadatiin kulli maamulyaalatiin soo maaha ninka xafiis kasta kulligin meelaha u sarraysiin soo maaha wiilka albaabka jooga waardiyaha albaabka markuu furaayo qaab fiican u furaa rabaa soo xanaaqsan markuu albaabka fur gal namood duu ku dhaho bad experience started from the gate albaabka soo bilaabata maxaa xilligaa imaata war xilligaa maxaa waane I have a choice ma iska laabarsaado ومركا وإن أقونت وإن لفافية هذا أذنك أنتنا وعن اللي قلت لك قال هنا صيفة في سنة أقونت قف كتر ميلو مملوكية هذه اللي قلت له قح وامحي معامل السمبر قف هو يوز أورزيل قف كستو أو حاجة استعماله دايركتلي أم إندايركتلي sometimes الشركات دليفري كاستمر كيائه ما يلا أقول لهم سؤال اسكوي الديوان شركات دليفري مركتها كاستمر كيائه هذه شركات دليفري الصومالي سي ugu shaqeeyaan waa for example maanta shirkad delivery ta customer ka yaade ka soo qaado kala hadda anaga Soomaaliya waxa ugu weyn ma rakaab shirkadaha ay wax ka soo qaadayso maqaayadaha ama jikin ama waxyaab ma customer u ah bas dadka u geynaysa customer u ah ya kuwa ka soo qaadaysana kuwaas lacag ka qaadanay ma maxaa la meeshaan qof kasto isticmaalaya service-kaaga daryeel u baahan yahay alaabtii aan diyaariyay kaaliga soo qad hadda ka soo dahday ka waran waa ka guuray shirkad kale yiri soo baxday shirkadu waxa jirta faafal loo soo ma shirkad badan jira delivery waa badan yihiin saddex sac kaas weyn laga markaas oo kale maxallada multiple customer alada shaqada dhib badan tahay kana muxuu ka rabaa daryeel you have to satisfy all of them labadooda inaad for example shirkad NGO joogta saddex customer ay la kartaa customer waxa ku masaakiinta wax la siinay customer ka hay'adda dikar wacayna hay'adda markay cuntada noo keento waa hay'ad dadka masaakiinta beneficiaries ka laha shirkadii lacagta soo bixiso donorkiina waxa waay customer ku tahay waxa uu qabatay sidoo kale customer waxa ku ah qolada masaakiinta NGO-ga mashruucan soo helay sama NGO mashruucan soo helay ay ka miskana lacagta meel ka soo helay adiga maxaa service provider ka tahay qofka wax qaybinaya tahay implementer ka tahay ama guriga dhisaysa ama iskuulaha dhisaysa soo marka how many customers you have three customers maxaa laga rabaa marka you have to satisfy all of them kulligood waa inay qancisa shirkadaha aan intaas sameyn ma sii nagaynayaan mana sii joogaan khadka baxayaan customer satisfaction maxaa ka sarreeya iimaanka meesha u sarreeya maxaa waa ihsaan maaha customer satisfaction maxaa u sarreeya delight ugu shaqo qofku wax inuu jeclaado qofku ku qanacsan yahay wax weyn maaha hay gabadha guursatay hay guriga ka waran wallahi waa iska qanacsanahay إيمي يقول هذا والله كفر حسنة is it the same حتى أنا waxaan ka hadlayn lagu qanco qanaacada meesha hoose waay qofka duu erey ku daro waa iska haduu ku daro xalka eber waay dukaanka ka war wallahi waa iska guriga dhismihii injineerka ka war guriga ku dhisay wallahi waa iska maxaa la sameeyaa markaas qofkaas dhibaato ka jirto in la xishoodo mal rabo waxaa sheegtiin 5 qodob 5 erey oo qaldan oo macaamiil lagu dhahay adi ma dhihin oo dadka su'aashan dadka weydiin kara qariyaan qariya idinkana adi ma dhihin yaa dhahay laakiin waxa dhahay qof maqlis yaa laga xishoon erayaan yaa qof ku dhigana dhahay qofkaas ku dhigan markuu dhahay maxaa ahay for example waxa kamida waranaga tag waranaga waxa maana loogu talagalay meeshan barnaamijka maana loogu talagalay mashruucan waa wrong phrase erey qaldan waan think of 5 negative phrases you made or heard mar kullu waxa ka dhigana waa maqashaya qof geesi u dhigi kara ana dhahay ma jiraya waa ogahay maamulka laga baqaa maamulku waa fadhiyaa hadhow waxa waaye laakiin waxa tira waa maqlay saaxiibka balaayad u saaray in your department shantaas erey buu sii qora qof kasto waraqadiina ku qora way akhrinaysan 5 erey oo qaldan oo macaamiil lagu dhahay
maanta waxaan tusayay macaamilka sidoo muhiim iyo Soomaa shan shay oo qaldan oo aad maqashay aan ka rabaa inaan qortid boobsiyo هاي أنا أبي دعوة هاي أنا كستمر أها قاعد وطالع كهر experience كاس كياما كان شوق يجي لرنتي ما يقصد داهم كهوري شباب شقدين خاص محمد على شقدين حكى له أركي بعد الدين إسكبه ولا أنا ما بقول إسكبه أسمي كان iyo tan aho kale hadda uu dalba qaaday xilligii weli qaayda furan tahay مع السلامة hadda waxaan qaadeen dalabay ama joog oo sug ama iska baxay la mid tahay iyo waxa kale oo maqlay adiga qaladkaaga waayo customer-ka eedeynayo adaa qaladkaas iskale iyo akhlaaq malid taasna ma dhigay akhlaaq very good thank you dhibaatada dhacday dhibaatada maxaa lagu xalinaa marka koo horto qofka ina dhahdid we are sorry not only we are sorry but express you are sorry fiiriya ina dhahdid we are sorry iyo ina wajigaaga muujisid dadka qaarkood waxay ku leeyihiin raali lahaw bis maxaa yeelay processka shirkadda qorana waxa kamid ah inuu qofka raali lahaw marka it is not what you said but it's how you said ma aha waxa dhahaysid laakiin maxaa waay habka aad dhahaysid qofka marka aad raali lahaw marka dhahaysid waxaa la rabaa inaad tuso darin raali lahaw waa ka xunaha khushuuc inuu ka muuqdo la rabaa don't argue and interrupt qofka haladoodan sidiisaba customer dood ma lahan don't lose your self control xadka ka bixin buyer behavior dhaqanka macaamiisha is quite complex inta laga hadlaa Mareykan Europe awakas laga sheegaa in maxaa ka filayay in malaa'ig noqdana hadaba suuq soo baxay inaad shaqaysatid ku talagal wax kasta inaad fashid markaad rabtid inaad gaartid daryeel macaamiil shirkadaada oo dhan qodobkan muhiim ah xafmeelaa joogtaa qorta meelaa joogtaa waxaar daryeel macaamiilna gaartid macaamiishii maanta lagu soo baray macal Saciid ku soo akhriyay inaad isbedesho rabtaa number 1 teamwork haddii dhexdiina isku kacsantihiin adinka isficlaysiin adinka asla shaqayneen if there is no teamwork you will not survive